madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo magaalada Kismaayo kula hadlayay bulshada rayidka ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida uu hadalka u dhigay inuu dalka god ku riday. Axmed Madoobe ayaa sheegay in sharci darro ay ahayd go'aankii uu dhowaan baarlamaanka Soomaaliya muddada ugu kordhiyay hay'adaha dowladda oo muddo xileedkoodu dhamaaday. Saad ogtiin laba aqal baa jira. Labada aqal December bay ku ekeed waqtigooda. shaqo kasta oo la qabanayo waddankan heshiiska siyaasadda aasara iyadoo waqtigoodii dhamaaday inay haddana go'aano la qaato qaraaraad la qaataay wax sharci ah maaha. ciidankii dowladda ee qaranka oo ahaa ciidan u abuuraa difaaca dal shabaab la dagaalankiisa iyo waddanka inay dadka u sinaadaanna waxay noqdeen kuwo loo isticmaalayo in dadka lagu caburiyo lagu laayo loo isticmaalo. bilaa calaykum aan idin weydiiya maanta hal tuulo oo Soomaaliya ka mid ah oo 4 sano la soo dhaafay shabaab laga xoreeyay ma jirta. bal waxaan oran karaa shabaab baa loo shaqeeya oo dhulkii shabaabka laga xoreeyay oo dhan maanta kulli iyaga ka talinaya. shacabkii baa lagu caburinaya. waxaa la leeyahay ciidamada magacyo loo sameeyay dadka kaliya lagu waxeeyo. waxaa idinku filan waxa gada maalmo diyaaradaha lagu daldalayo kuwa shabaabka dagaalka ku jira rasaasta xataa loo soo qaadi lahayo. waa arrin aad iyo aad u waxaysan. waxaan rabaa inaan idin sheego marka anagu waxaan nidhi aan ku dhaqanna dastuurka teeramka waa la yaqaan hay'adaha dowladda. waxaan ka hadlaynana waxay ahayd awoodda madaxweynuhu uu isticmaalayo ee hay'adaha amniga loo isticmaalayo. ciidan hala kala diro xasha sababtoo ciidanku waa ilaaliyaal sharciga. laakiin waxaan rabnaa ciidanku inaan loo isticmaalin burburinta waddanka iyo dhibaato inay geystaan. ciidanka ay noqoto inay noqdaan dad u taagan hagidda amniga iyo ka shaqaynta nabadgelyada dadka iyo la dagaalanka shabaab. haddii laakiin ciidankii uu noqdo hay-ado waqtigoodu dhamaaday inta isticmaalaan in qaabkaa iyo qaabkaa la yidhaahday waa wax khaldan. waxaa kaloo khalad idinku filan maalmeed waxaa la yidhi baarlamaan baan fadhiistay golaha shacabka aqalka hoose waxay ansixiyeen waxay yidhaahdeen 17 Sebtembar heshiiskii ah waan laalay. waxaan soo celinay hay-addii doorashooyinka qaranka xalimeeyanay 2 sano aan rabnaa in waddanka lagu sameeyo. horta waa su-aal ee sharciyadda ay baarlamaanku leeyihiin ay ku fadhiyaan waatee ay sharciga noocaasa ku ansixinayaan. waa lambarka labaad ee 2 aqal bay ahaayeen. markaan 17 Sebtembar gaadhnay cabdi xaashi iyo labaduba way isla qaateen oo waxay qaateen inay labada guddoon ee labada baarlamaan baa saxeexay heshiisay labada aqal gaadheen buu ahaa. maanta heshiiska aqalka baarlamaanku uu gaadhayo keligii waa maxay? xaggee buu jira? xaggee buu ka imanaya? ma u leeyahay awood? markaan ka hadalna guddiga doorashooyinka lala hadlayo loo yeedhayo xalimeeyanay teeramkeedu wuu dhammaaday mandatekooduna lama cusboonaysiin karayo. wuxuu hadday la jiifiyaano bannaanta waa masiibo kale. maanta madaxweynaha xilligiisu dhammaaday iyo hay-adaha uu camcamiska ku watahay Soomaaliya god bay ku ridayaan. haddaan maanta la iska qabanna waddankaani dib buu u noqonaya meel kale u tegaya. ummad walibana waxaa waajibku ah inay tashato isweydiiso xaggee loo socdaa maxay tahay waxaa nala gudboon. maanta in shabaab waddankii loo wada dhugleeyo oo dadkii la burburiyo oo hay-adihii dowladda saa loo galo oo maanta aad ogtihiin magaalada Muqdisho maxay faa'iideen Muqdisho maanta in jidadkiina laga wada xidho habeen walba cabsi ay ku jiraan dadka in dhibkaa loo geysto. dulqaadka ay muujiyaan reer Muqdisho waxaan rabaa inaan mar kale iyo mar saddexaadba aan uga mahad celiyo iyagoo garanaya wixii shalay la soo maray maanta laakiin wax kasta oo ka yimaada wax lagu khasbay sababta waxa loo geysanayaa waa dhibaato aad u badan. doorasho sharaf leh oo xor iyo xalaal ah shalay ku yimid madaxweynaha xilligiisu dhawaaday Farmaajo maantana waxa uu geysanayaa waa midda boobka ee sharci darrada ee hay'adihii dastuuriga aqalkiisana uu yahay iska tago oo uu yidhi aqalkii hoose waqtigiisu dhamaaday sharcigan ii sameeya oo uu diiday dictatorship xilligan jooga oo daciifa oo tabarteedii lahayn inaan maanta meelo kale intaan ku dayano nidhaahno afarqaan la hagayo 30 sano sida afarqa u haystaan ku haysanaya waa wax aad looga xumaado. waxaan rabaa reer Jubbaland iyo Soomaaliba inaan u sheego war ha la tashado. meesha waddankan uu ku socdo waa god madow. madaxweynahan xilligiisu dhamaaday kaliya kursiga u muuqda wax kale oo dan kale ma jirto. Axmed Telefishin Gobonimo.